قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. The Prophet of Allah, peace be upon him, said, actions are judged by motives, niyyah. So each man will have what he intended. Thus, he whose migration was to Allah and His Messenger, his migration is to Allah and His Messenger. But he whose migration was for some worldly thing he might gain, or for a wife he might marry, his migration is to what for which he migrated. Rawahu Bukhari and Muslim. Nabiga Allah, naxariis Allah korkiisa ahaata, wuxuu yidhi: acmaashu waxay ku xiran tahay niyadda. qof kastana wuxuu helayaa wuxuu niyeystay. qofkii niyaddiisu ay tahay inuu Allah iyo nebigiisa u hijroodo, Allah iyo nebigiisa buu u hijrooday. qofkii niyaddiisuna ay tahay inuu adduun kasbado, mise haweeney uu guursado, hijraddiisu waxay ku eg tahay wuxuu u hijrooday. xadiidkan wuxuu ku jiraa Bukhaari iyo Muslim.